Okay, marka haddaan datadeeni ku sameyno daraasad ku sameyno ama visualization ku sameyno, waxaan isticmaalayaa dot shape horey oo soo barateen. Data waa training, waa datadeeni qaybteeni training ahayd. Waxayna tusaysaa inta row ama inta column uu yahay. Datada trainingkaas 891 row ayay ka kooban tahay, 12 column way ka kooban tahay. Testiga hadda fiiriyo ayadana waxay ka kooban tahay 418 row iyo 12 column. columnkii kale oo aan ku dhahayay waxay macnaha waxa loo tirtiray sabab jirta awgeed oo ahayd dadka dhintay dadka nool in macnaha la qariyo. Train describe ayadana waxayna tusaysaa wax la dhaho xisaab ahaan in datadeena hadda survived oo kaleeto inta row ka kooban tahay, mean macnaha celceliskii, standard deviation-keedii, minimum-kii. Marka aad ayay tanna muhiim u tahay oo waxyaalo badan hadda mean iyo maximum oo kale na tusaysaa. Tusaale ahaan age-ka oo kaleeto dadka marka ka saarnaa celcelis ahaan dad waxay ahaayeen age-koodu ilaa 29 sano jira. Waxa ugu weynaa 80 sano jir, waxaana ugu yaraa qof 4 bilood jira oo ujeedaan hadda 0.4. marka describe waxyaalahaas ay naga anfacaysaa. Testiga oo kaleeto hadda iyadan describe ku sameeyo sidoo kaleeto iyadana dadka waxaa celceliskooda 39 hadda soo dhow yihiin, 26 sano jir ayaana ugu weynaa. Anagoo sii wadana baarita ama inaan xogta sii ogaano intaanan machine learning modelkiisa aanan u dirinin, waxaa dhahaya train dot is null waxa la dhahaa jira oo ah in summation haddana isku dar la dhaho. Macnaheedu waxa weeye inaan ogaano 12 column oo kale hadda training ka koobnaa. hadda aragtaan passenger ID column ugu horeeyo kale 0 waxba kama maqnayn way is null. macnaheedu waxa weeye null wax kulli complete ma yihiin mise waxba ka maqan cellkii ama kamida. tusaale ahaan hadda NaN oo kaleeto waxa weeye xogtaas lama hayo oo qofkan master awan oo kaleeto daba qolku ku jiray xogtiisa lama hayo, waa maqanta NaN taas la dhahaa. marka xogtaas lama hayo. marka wixii saas oo kale maxay yihiin waxa ugu badan column-ka la dhaho age-ka waxa ka maqan 177 xog ayaa ka maqan. 177 qof kamida age-kooda lama hayo way macnaheedu oo ama NaN ba ku qoran NaN ba ku qoran. macnaheedu waxa weeye not applicable macnaha lama hayo. cabin-ka kaleeto qolalkii macnaha dadku seexanayeen 687 qof oo xagta hadda 800 ka kooban tahay lama hayo way macnaheedu oo xogtaas way ka maqan tahay. Embark-ka kaleeto laba qof ayaan lahaynin meesha ka yimaadeen ama doonta meesha ka soo raaceen markabka. marka datadeenan aan marka hore 800 ka kooban 2,000 qof ayaa saarneyd ayaa markabka yiri. marka 2,000 oo qof ka badan 2,200 meelahaas ayaa saarneyd oo dhan lama wada hayo. laakiin gaagalka hadda xogtay hayaan waa 400 oo testiga ah iyo 800 oo training-ka ah. hadda marka sii wadano datadeeni testiga ahayd ayadana age-ka 86 qof ayaa ka maqan, cabin-kana 327 ayaa ka maqan. train.info ayadana waxay qabataa xoogaa isku soo dhow yihiin. waxay ku tusaysaa ayadana meesha ku dhahayeen intaas ayaa ka maqan, kan waxay ku leeyihiin kan 890 iyo kooda waa complete oo waa la hayaa xogtii. age-ka kale 714 ayaa la hayaa. waxay ku leeyihiin datada noocay tahay, ma integer bay tahay, ma float bay tahay, ma objective bay tahay. aan horey kusoo baranay oo ahayd integer-ku waxa weeye wixii number ah 1 2 3 float-kuna wixii 0.5 iyo 1.5 oo kaleeto float baa la dhahaa. Objective-na waa wixii xuruuf ka kooban ama letters ka kooban object ayaa la dhahaa. datadeeni training-ka ahayd ayaan waxaan soo qaadanay column-kii survived-ka ahaa oo
column-kan waa imise qofkii dhintay iyo qofkii noolaaday ku qornaa. Hadda Michael Master Owen dadkii dhintay ayuu ka mid ahaa markii ku dhintay. Qofkan wuxuu ahaa oo qof dumarana qofkii ka badbaaday marka dadka badbaaday ayay ka mid ahayd. Marka column-kan survive-ka oo dadka qofka dhintay qofka nool sheegayay ayaana waxa ku sameeyay inaad iraahdo tiri imise qof ayaa markabkan hadda xogtaas 800 aan hayno ka badan imise qof ayaa dhimatay ama marka dadka dhintay ayaa badan oo u jeedaan 549 qof ayaa dhintay. 342 waa ka badbaaday. Imise qof ayaa dumar ahayd imise qof ayaa rag ahayd dadkii markabkan saarnaa ama xogta hadda hayno 800 ka badan 600 dad ku dhawaada 577 qof rag bay ahaayeen. dumarkana waxay ahayd 314. testiga hadda hayno ayadana raggaa badan 266. haddaan ayadan haddana fiirino dadkii age-kooda maxay isugu jireen marka waa arkaysaan 24 qof ka mid ah 30 sano ay jireen 22 sano 27 sano ay jireen. Group by ama waxaan isu soo bardhigay imise qof oo dumar ayaa badbaaday 70% dumarku waa badbaadeen halka 18% ay ragga ka badbaadeen. Meeshan waxaan ku arkaynaa dadkii yaryaraa inay badanaaba ay badbaadeen age-kii oo jeedaan wixii halkii sano ka yar kulligood waa 11 hadduu 1 yahay macnaheedu waa qofkaas waa badbaaday. Kan waxaan isu barbardhigayaa qofkii da'diisii iyo rag iyo dumar wuxuu ahaa iyo markabka meesha ka saarnaa iyo inuu badbaadiyo in kaleeto. Marka ilmiyaashu meel kasta saamaayeen badanaa waxay u badnaayeen dadkii carruurta ah inay badbaadeen 11 bay u badnaayeen. Waxay isu barbardhigaysaa dadkii dhintay iyo dabaqaday kala saarnaayeen. dabaqada ugu fiicnayd waxay ahayd dabaqada galaaska koowaad ama business classka ama first class dadkii 60% waa badbaadeen. waa u jeedaan boqolkiiba waxa ugu xumaa 20% meelaha ka badbaaday waa dadkii dabaqada saddexaad meelaha ay ka kala yimaadeen. hadda waxa ugu fiicnaa dadkii macnaha 55% ka badbaaday la dhihi karo waxa ay magaalada Faransiiska doonta ka soo baxday macnaha dadka ka soo raacay markabka tikadaas ka soo raacay Southampton ay ugu liidatay. kana waxay tusayaan oo hadda fiiri qofkan ugu lacag badnaa 512 lacagta waxaa la qiyaasay inay ahayd pound marka waa kan qofkii ugu lacag badnaa wuxuu ahaa 512. hadda dhaho qofkii ugu lacag yaraa oo marka lacagta ugu yaraa ku soo raacay muxuu ahaa 0 macnaha free dabcan ku soo raacay bay la tahay. haddana waxaan sameynaynaa waxa la dhaho weli waxaan kusii jirnaa talaabadeena saddexaad daraasad inaan ku sameyno ama visualization haddana waxaan rabnaa isku dayaynaa inaan kusoo macnaha graph oo haddaad machine learning ku shaqeynaysid ama data analysis ku shaqeynaysid waxaa muhiim ah inaad graphics-ka wax ka taqaanid. casharo hore ayaan matplotlib ku soo dhiganay. Seaborn waa library ka mid ah oo dushiisa ku dhisan matplotlibka. weli inima soo gudbin laakiin aad ayuu u fiican yahay isaguna. marka haddaan hadda aan ku tuso graph ahaan waxaa intusayaa running haddaa dhaho waxa weeye imise qof oo rag dumar iyo rag ah imise qof ayaa badbaaday haddaad rabtid inaad graph kusoo bandhigtid sidaan ayaa kusoo bandhigaysaa oo ah ujeeda blue waxa weeye 0 uu taagan yahay 0na waxa weeye qofkaas uu dhintay ma ka badbaadin. orange-gana wuxuu u taagan yahay kalarka noocan orange-gana wuxuu taagan yahay dadka badbaaday. ujeeda male-ka ama rag qofka ragga ayaa dadkii ragga ayaa u badnaa graph-kooda meeshu gaaray waa ujeedaa. Seaborn SNS aan soo gaabiyey matplot-kan wuxuu na tusayaa isku ay barbardhigayaa inaan qof intii qof dhimatay iyo magaalooyinkii doonta ka soo raaceen oo kaleeto iyo rag iyo dumar waxay ahaayeen. hadda tusaale ahaan Southampton dadka ka soo raacay intaana qof ayaa ragga ka dhimatay intaana qofna dumarka ka dhimatay. qaybtan ayadana waxaan oo idinku tusayaa age-kii
iyo relationshipka ka dhexeeya inta qof dhimatay iyo meesha kasoo raaceen iyo dabaqada ka saarnaayeen first class miyay ahaayeen business class miyay ahaayeen dabaqada hoose miyay ahaayeen tusaale ahaan dadkii dhintay anaa wax u kala qaybiyey hadda children iyo teenage iyo macnaha iyadoo aan macnaha waxaa sameeyey wax la yiraahdo haduu qof 18 ilaa 0 u dhexeeyo inay children ahaayeen marka graphicskan waa kuwan oo ujeedaan childrenka waxayna tusayaan inay almost ay dadkii dhintay iyo dadkii macnaha ciyaalkii dhintay ciyaalkii ay isla yihiin halka teenage-ku ay badan tahay inta qof dhimatay adultiguna waa ujeedaan inta qof dhimatay ayaa badan oliguna sidoo kaleeto laakiin wixii ciyaal ahaa badanaaba way isla kaayeen intii dhimatay intii badbaaday wuxuuna tusayaa ciyaalkii macnaha dadkii age-ka kala duwanaa iyo dabaqaday ku jireen oo hadda tusaale ahaan dadkii daaqada koowaad ama first class ama business class ku jiray oo ujeedaan inta dhimatay way yarayd oo inta badbaaday oo orange-gu waa badbaaditaanka ayaa badnaa tuso qof weyn ahay halka dabaqada saddexaad oo dabaqada aan dadka lacagta badan lahayn ay dadka dhintay aad ugu badan yihiin bluega oo arkaysan waa dadka dhintay koodhkaana hadda soo qorayna iyadana waxaan tusayaa inoo rabo inaan soo barbardhigo wax la yiraahdo aan running ku sameeyay hadda dadka lacagtay bixiyeen iyo intii dhimatay inta badbaaday waa ujeedaan lacagta dadka aad u yar VL waxaan soo kaabay very low lacagta bixiyay lowga iyo low medium iyo waxaas ayaan soo kala gaagaabiyay marka dadkii lacagta aad u yar bixiyay ayaa dhimashada ugu badnayd halka dadka lacagta badan bixiyay ay u badnaayeen dad badbaaday macnaha dad qaaliga marka visualizationkan wax yar buu qaadanaya dhowr daqiiqo wax yar suga marka Seaborn-ku aad ayuu uga fudud macnaha uma fududa laakiin uga fiican yahay ayaan dhihi karaa ama waa library matplotlib korkiisa ku dhisan waa kuwan marka bearplotkan wuxuu wixii dhan oo wixii datadeeni wixii ka kooban nambaro ayuu graphics kala duwan noogu sameeyey hoosna waa intii oo kaleeto marka Seaborn aan intaa uga gudubno oo ah ku saabsanayd ama wax la yiraahdo stepkeeni saddexaad oo ku saabsanaa data macnaha daraasad aan ku sameynayna visualization hadda datadeeni wax un baan ka fahansanahay waxaan u gudbaynaa talaabada saddexaad oo ah inaan ku sameyno datadeeni cleaning ama kala saarid ama kala habeyn